السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلنتو عن ونكسن صاحبيال كسو دوادا شيكوينكي قصل كبدنا كافتنكي بسلة أما بسلة جوكس وحينو مريسي شيكادي إلا يقريغا شيكادي حكتا قبير كالي نين رير مدوغا باواحا لو ديباي غاري markaasuu saacada meesha ugu dambaysa ku waday oo facaska uga dhigay shal raha hadba wuxuu gooyaa jid nalal gudan u shidan yihiin ninkii la saarnaa baa yiri sawma ogid nalalkan aad goynayso inaan shil ku gali karno wuxuu ku jawaabay khabiir baan ahay ka seexa waxaas markii dambe buu ka istaagay nal gudan waxa lagu yiri war haye maxaad u istaagtay kuwa kaleba waad soo jiirtay wuxuu yiri waxaan ka baqayaa khabiir kale inuu maraayo sheekada xigta in aad mataana tihiin ciidamadii Soomaaliya ee Ruushka loo diray kuwa ka mid ah oo bas saaran baa gabar Raashiyaan ah ku tiri dadkiinan Afrika ka yimaado maxaad la madowdihiin miyaadan qabiisanin mid baa soo booday intuu farta ku fiiqay mid jareer Soomaali ah buu yiri ninkaas kaliya Afrikaanaga ah inteena kale Carab baan nahay gabadhii baa tiri yaa dumyu ushtu fabalishnice waxaan u haystay in aad mataana tihiin adiga iyo ninkaas sheekada xigta jidka jannada mid qurbaha ka yimid baa wuxuu su'aalo weydiinayay nin wasiir ah wuxuu sheegay inuu Afrika ku soo dalxiisay meelo badan oo ugaar leh asagoo leh waa janno caadi ah wuxuu leeyahay qurbaawigu waa in la dhimaa cunista hilibka ama la joojiyaa sababtuna wuxuu ku sheegay xuquuqda xayawaanaha waa in la ilaaliyo naf bay leeyihiin Soomahan caafimaadka dadka waa in la ilaaliyo cholesterol buu leeyahay hilibka sidoo kale bilicda dalka dhumayso haddii hilib badan la cuno sheekadii asagoo wada baa qarax dhacay oh my god oh no that's not good iyo take me out of here please buu la kacay waxa lagu yiri waxa tiriba lagu yiri laakiin fadlan iga kaxeeya meeshan waan fahanay bal sug wadaadadii meesha qarxiyay oo jidka jannada ka dhumay baa soo socdo wadada jannada baa sii tusaysaa maadaama aad dhowr mar booqatay sheekada xigta laba xabbo oo kabad ah shawarmada Soomaaliya laga cuno waa shawarma aad u waaweyn ma aqaan wax laga sameeyay saaxiibkay Haarun Ahmed Cabdulle oo gaalkacyo ka yimid baan geeyay maqaayad shawarmada lagu cuno aad buuna ugu helay habeen kale baan tagnay meeshii aniga waxaan dalbaday cambuulo asaga markii dalabka la weydiiyay wuxuu iloobay magacii shawarmo waa iska reer muduga kulaha wala laba xabbo oo kabad ah isii sheekada xigta gamba xitaa kama furin wali nin aroos ah bil iyo xoogaa baa waxa la weydiiyay in xaasku uur u yeelatay waxa la yiri khayr ma jira oo uur ma yeelatay xaaska intuu la yaabay buu yiri wali gambada xitaa kama furina goormay uur yeelanaysa sheekada xigta maxaar buu taqsiintay waxa hadlaya waa qoraaga nin saaxiibkay ah oo la yiraahdo Caydrus Ararso iyo aniga oo meel fadhina baa waxaana soo dhax fariistay mid afkiisa aad u uraayo markaas buu iska sheekeeyay anagana waan dawaqnay markii dambe buu baxay saaxiibkay Caydrus kulaha aga awgiila gubku maxaar buu taqsiintay sheekada xigta aabihiis waaba dhintay intay ay isku arkayaan aabaha oo ka mid ah majaajilistayaasha Soomaalida baa asagoo yar wuxuu noogu yimid darjiin anagoo fadhino markaas buu noo sheegay in aabihiis ay qaniinay asagoo marna naga qoslinayay marna nooga digayay eyga weyn oo xaafadda jooga in la iska ilaaliyo qosalkii baa waxaa noogu soo leexday oday asagana xaafadda deganaa wuxuuna weydiiyey waxaan ku qoslayno mid baa yidhi aabihiis baa ay qaniinay odaygii kulahaa aabihiis kol horuu dhintaye intay ay isku arkayaan sheekada xigta kan xiga Soomaalida waxaa dhaqan u ah markay hadlayaan waxay ku bilaabaan hadalkooda waxaan ahay ninka ugu aqoonta yar ama waxaa jooga dad iga aqoon badan waxaan sheegi lahaana waa la sheegay laakiin waxaan ku darsan lahaa shir UN-ka baa waxa ka qayb galay nin Soomaali ah markii makrofanka loo dhiibay baa wuxuu yiri waxaan ahay ninka ugu aqoonta yar wixii aan dhihi lahaana waxaa yiri ragga iga horeeyay hadda waxa gooni ah idinkuma soo kordhinay laakiin markuu maraya baa makrofanka laga qaaday oo la yiri kan xiga markaas buu yiri maxaa dhacay oo la iga qaaday makrofanka waxa lagu yiri adiga noo sheegay inaadan aqoon lahayn wixii aad sheegi rabtayna hore loo sheegay marka waqti hanaga dhuminin sheekada xigta gariir shimbiro ka yeelkaada oday xir ah iyo islaantiisii baa is soo raacay ayagoo magaalada u socda reer bay u soo martiyeen waqti galabgaab ah markii la soo dhaweeyay bay islaantii martida loo ahaa aragtay gariir saaran geed ku dhinac yaala guriga markaas bay tiri sheekhow waa gariir sheekhii baa yiri
shar buu wadaaye neef ha la qalo islaantiisii baa tidhi gariir shimbirlee ahaa warkeeda dheg looma jalaqsiinine orgi baa la gowracay asagii islaantiisii baa hilibka la iskugu soo daray markaas bay garab uu odayga ilaashanaya la boodday markii ay dhowr jeer goosatay isagoo weli cad kor u qaadin buu yidhi gariir shimbiro ka yeelkaada iyo garab kala goyntaada isma leh sheekada xigta bari iyo banaadir wasaaradda beeraha baa waxay qabatay seminaar looga hadlayey tacabka iyo cilmiga beeraha waxaa is ag fadhiyeen nin reer boosaaso ah iyo mid reer xamar ah wasiirka markuu khudbada bilaabay ninkii reer bariga ahaa wuu iska seexday kii reer banaadiriga ahaana si fiican buu u dhuuxay markii ay khudbadii dhammaatay baa wuxuu ku soo toosay sacab sheekadan baana dhex martay reer bari ari abbowa maxaa kuu baxay waxa uula jeeday maxaad ka fahantay reer banaadir arey badar iyo qudaarba waa ii baxeen wuxuu u mooday in beerta laga waraysanaayo reer barigi arey ma falan tahay maxaad sheegaysaa miyaad waalan tahay reer banaadir ma falan tahay xay tahay waaba abuuran tahan ku iriye reer barigii oo u qaatay inuu ninkan ku ciyaarayo baa intuu xanaaqay ku yidhi ariqad warbax reer banaadirkii baa yidhi xaan la qadaa badaraaban tacbadee qoraagu wuxuu leeyahay bari iyo banaadiri iyo nawaaxigeeda inta badan waa isku lahjad dhow yihiin laakiin afguriga bay ku kala duwan yihiin saaxiibayaal intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenna maanta intaan barnaamij la mida ku kulmi doonno waa saaxiibkiin faarax fawzi oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabad